markale xukunkiyo xilkaaga udhi xilkaaga udhi xilkaaga udhi kulmiye 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 uxilo markale xukunkiyo xilkaaga udhi markale xukunkiyo xilkaaga udhi xilkaaga udhi xilkaaga udhi dal xeer ku dhaqmo xuduuda dadliyo dal xeer ku dhaqmo xuduuda dadliyo hoggaan xeeriya xuquuqda shacbiga hoggaan xeeriya xuquuqda shacbiga oo aan lagu xaman xigtiyo qolo qolo oo aan lagu xaman xigtiyo qolo qolo xoolaha qarankiyo kaliita xafida xoolaha qarankiyo kaliita xafida kulmiye 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 uxilo markale xukunkiyo xilkaaga udhi markale xukunkiyo xilkaaga udhi xilkaaga udhi xilkaaga udhi runtii taageeradan ballaadhan iyo cududan aad muujiseen haddaad tihiin taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer waxay muujinaysaa cududa ballaadhan ee xisbiga kulmiye uu ku leeyahay gobolka togdheer waananu idinka mahad celinaynaa sida qiimaha iyo sharafta leh aad u soo baxdeen aad xisbigiinna u taageerteen runtii waxaad muujiseen cudud iyo quwad uu cadowga kulmiye ka naxo cid kastoo kulmiye jecelna ay ku faraxdeen waana dhaqankii lagu yaqaanay reer bulco iyo reer togdheer cududan ballaadhan iyo taageerayaasha miisaanka leh ee isugu soo baxay fagaaraha khayriyada aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa si kaliya laaba waxaan i yar ka odhanayaa taageerayaashan reer togdheerow xamar ragga idinku wada ee maanta u ololaynaya xamar inay idinku daraan keliya waxaynagaga filan annagu xamar dooni mayno xumaanna u geysan mayno waxaan idinkula dardaarmayaa ninaan la hubin halka uu idinku wado codkiinna inaad ka ilaashataan waxaan idin leeyahay intii aad cataabi lahayd hadhow iscanaanan layd cid aad hubto maanta dooro waxaanoo ummada makulmiyaa waxaanu leenahay meeshan burco la yidhaahdo waar burco cidna ku tartami mayno cidna burco ku tartami mayno xisbiyada qaranka la qadin maayo wuxuunbaa loo dhiibayaa soocaynkaa ma aha war laakiin burco dee cidna ku tartami mayno haddaanu reer kulmiyana aad iyo aad baa u mahadsantihiin wakhtigu waa wakhti kulul inta saddexda saacadood ee halkaa aad taagnaydeen ee aa xisbigiinna iyo madaxdiinna qaranka u taagnaydeen iyo kuwa xusbigaba aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin somalilan ha noolaato kulmiye ha guulaysto musharaxiinteennu ha guulaystaan walaalayaal xisbiga kulmiye waa xisbiga horumarka waa xisbiga haweenka waa xisbiga dhallinyarada waa xisbiga waxqabadka xisbiga kulmiye waa xisbi la soo tijaabiyey waa xisbi in badan 7 sano waddanka soo xukumayey waa xisbi waxa uu ka qabtay waddanka iyo horumarka ballaadhan uu gaadhsiiyey cid waliba qirayso cadceedna waxaan leeyahay sacabada laguma qariyo waxqabadka xisbiga kulmiye uu waddanka 7 sano ka qabtay waxaa ka mid ah xisbiga waddaniga inala tartamaya xisbiga waddani waa waxqabadkeennii waxba yaynaan fogaynin aynu soo dhowayna waxqabadkeenna aynu tartan xalaala la galno waxay caddaan oo wada aragtaan in maalinba maalinta ka sii dambaysana ay taageerayaashu ka sii dhan kastaba ha joogeen nafli idinka dhiilow waddani ow dadkii idinka dhiilow hadalkiinnii waa laga naxay hadalkiinnii
waa laga wada naxay qarannimadu saas maaha dadka kala qalee maaha qoqob iyo xumaan maaha ma qoqob iyo xumaan baa soo dadka isu soo jiida maaha waxa weeyaan waxay xisbigaasi kula wareegayaan waddanka oo ay ku tiraabeen lacagtii dawladda qaadhaankii wadareed ee la ururiyey ee dawladdu xilka iska saartay iyay yidhaahdeen 10 milyan xaggaad gayseen way og yihiin way isina tirayaan haddaan idiin sheego guddida xukunta 3 xubnood oo waddaniya baa ku jira way og yihiin halo buro bay maqlaysaan walaalahayga kulmiyow kulmiye ha guulaysto madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ilaahay cibrigiisa ha raajo mujaahid muuse bixi abdi madaxweynaha mustaqbalka ha guulaysto waxaan idin leeyahay walaal aniga iyo mujaahid maxamed kaahin axmed oo ah guddoomiyaha koowaad ee xisbiga kulmiye ilaa xalay waxaannu joognay xaflado ay dad badan soo gelayaan laga soo baxayo xisbiga waddani oo la gelayo xisbiga kulmiye waxa iminka waxay nagu meeraysanayaan oo arrinteenna marba meel ka soo gelaya waa farmaajo iyo dawladda muqdisho waxaannu ku kala duwannahay annaka xisbiga kulmiye kuma jirto cid u beerdhigaalaynaysa muqdisho xisbiga kulmiye iyo dadkiisu kuma jiraan qof doonayo xorriyadda somalilan inay wiiqato midnimadii soomaaliyana dib u soo noqoto qalalaasaha la abuuraayo nabadgelyada lagu ciyaaraayo durbaanada xamar laga tumaayo si somalilan midnimadii hal mar oo quray ku noqon kartaa somalilan xamar si quraa lagu geyn karaa somalilan xamar waxa lagu geyn karaa quruxda nabadgelyada xaragada dawladnimada nidaamka marka la burburiyo ee uu noqdo in nidaamkaasi burburo idinkoo habqanaba ragga ku talagelay ay doonayaan inay xamar idin geeyaan kuwaasi annaka ma aha kuwaasi annaka meel kuma laha walaalahayana waxaannu leennahay xamar yaan laydinka taageerine laascaanood iyo laasqora iyo ceerigaabo iyo badhan iyo hadaaftime iyo boorame iyo baki iyo dilo iyo maxaanku dhahdaayey burco iyo ha laydinka taageero laakiin yaan xamar laydinka taageerin xabiib ciga xasan universal TV magaalada Burco.